الله يا أغلى الأمم يا من سموتم بالقيم سيروا بجد وهمم قيمتنا أخلاقنا والدين كله شيم كفاه نورا في الظلم نحن بني الإسلام نمتاز بصدق وهمم لأننا خير الأمم قرآننا يجمعنا يدعو الأخص والأعم إلى التحلي بالقيم أطفالنا waxaan quraanka inuu ugu daaweey male dadku markay soo daalaan waxay ku leeyihiin dhakhtarka soo daalno wax kasta ka soo daalan bal quraankana hana lagu aqriyo ma quraankana hana lagu aqriyo ma aha taas waxa weeye marka hore intaadan gaalka aadin quraanka u tag gaalka inaad u tagto laguma diidana laakiin kuma daawadi runta hayda quraankana maxaa yeelay daawada aakhiradana saga daawada adduunkana saga bismillah ma iska furi karaa waxa la yiraahdaa ma jirto ragga ilaahay wuxuu dhigay xilaha orida iyaga dalqadeeda haya laba waa mid uun markayna su'aasha ku dheeraanin in ninka ay ka dhamaysato oo dalqada ay ka iibsato waxa loo yaqaan fiqiga islaamiga ama shariicadeena al-khulu' waxaa hore loo arkay ma walaalaha ahlu khayrka tabliiq iyaga u socda oo khuruujaya oo dacwo wada ayaa waxa dhacday waxay ka hor yimaadeen naag ku dhagan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنا قضين هذا أنا وحي كهري ماذا لو أنه اسكودك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كدي بوحي أركان بعد نين إناق اسكودك الحمد لله مصائبته أيها كلا محايا الشر بعض أخف من بعض ويكلا فضودها بإسليه يعني نين وحكر هذه إناقنا وحكر هذه والله بشيء لكن مركي أركان نين إناق ومال إسلام جوج الحمد لله بعدين بر هدي بعرك كل عظيم امرأة نين هداد أركتون نين رجعة ورجع آخري وحوي هوني ونكسم بكذا بيسا هذا عرفت إن رجيس أساقس كهرين هوني بالله هرتيوي معنا أساسا بيش كل عبن المرأة الصالحة وكذا ذهب كنكاس ستة أما المرأة السوء نوحي عند الرجل الصالح مثل الحمل الثقيل على الشيخ الكبير وبيدأه وعليس وين ماذا حلقة صار كذا لقى صار وكالته أيوة هو أنت مركا تهوني لبضن وحي المها بالبريسة iyo waxaad ku dhaqmayso waa inay isku mid yihiin way in telefishinka aad shidato oo musalsal aad fiirsato ilmiina xaggaad fadhiiso oo tiraahdo quraanka akhri adiguna aad akhrinaynin waa arrin khatar weeye وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه ما دونيو إن خلافه وحا معناها أنا كرهي بل وذا فربنا وانا سنين بعد كم مشغولة مثلا هذه هوينة تقول كذا جوكتا يكون ده شو أخبار هذا هذا إنترنت إنه جنبه هو علمي كل بكتاب كاردمه كل بكتاب كاردمه واحد كم مشغولة إن التلفون ما أنت دن أديك تهايسته إن تي في إذا ما أنت نهار فرد مسلسلات أنا نفع ولا حين يكون مشغول شو غير عرورت والدك يوفي سنة يا مرة أركان والدك علم يكون مشغول سنة سجل لفتي سو يكون مشغول يا أخبار الجعيل هذا دنك موجود وصعته وضبالته waad fududaanaysaa waayo biyihii baa ku sidaas ku dhan baa u socotaan marka dabaasha waana dheeraynaysaa horena u daali maysid biyahana ku sidaya dhankii aad u socotayna u socdaa waxaa la mid ah markaad biyo isku afkaartihiin iskuul isku afkaartihiin suuqa isku afkaartihiin aad joogto dhankaasaa wada dabaalanaysaa waxaad ku socotaa meel yaqiin ah rasmi aad u socotaa meel cayaar lahayn oo yaqiin aad ku socotaa sidaa darteeda hadda tawbada wanaaji dhalinyarnimadaada ha ku kadsoomin caafimaadkaada ha ku kadsoomin xoolo aad haysata ha ku kadsoomin nicmada alla subxaana watacaala ku siiya ha ku kadsoomin oo waxyaalahaas dhan u adeegso alla subxaana watacaala rallihiisa gaaritaanka cudurka Soomaalida maaragtay qabiilku qofkii isagoo garanaya war dadkan islaynaya qabaa'ilka ee muslimiinta ah inay fidna tahay waxan kani ayaa maxaa ku khasbaya waxa ku khasbaya caadifadii qabiilka ka xoog badnayd ayaa ku khasbaysa ilaa marka dambe khayrka iyo sharka muslima jaasuusidoo kale ee aad mushaar ku qaadatid ama qof muslima inaad project ka dhigatid ee xoolaha aad ku cuntid xatman xoolahaas aad ku cuntay qofka muslimka ah sharaftiisa iyo been aad ka abuuratay maalinta qiyaamada naar baa lagu cunsiinayaa xoolaha aad laqlaqaysid qiyaamo naar baa la laqaysaa ay isu bedelayaan
haddaad dhar ka gadatid ama gaari aad ka gadatid adduunyada maaragtay qof muslima projecti aad ku qaadatay iyo xoolo aad ku cuntay inaad jaajuustay isaga wax u dhibtay sharaftiisa been aad ka sheegtay ee xoolo aad ku qaadatay maalinta qiyaamada labis naareed baa lagu gelinaya يسجدوا لواحد فرد علم لله واهب النعم راح المطر بد الله كسر حوية الله راح المطر بد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومؤتمر كان اللباتنات محاضرة دي اللبات مالنتي سكوات عوانك محاضرة مانتا أو محاضرة دي اللبات وحوية وحيابها اللغو إلى ليو أستامها أمدي لها هاي محاضرة دي أصبح نوغل دون هدي الله إدمو شيخ مصطفى حاج إسماعيل فليتفضل مشكورا ومأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضاه وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوعنا الحفاظ على الهوية الإسلامية ama ilaalinta la ilaaliyo identity-ga ama aqoonsiga ummadi leedahay. ereyga alhuwiya min huwa buu ka yimid damiirkii ahaa oo ah xaqiiqada shayga. markaynu ka warramayno huwiyada qofka ama insaanka waxaan leenahay waa qofka oo naftiisa tacriifiya ama sheega fikir ahaan caqiida ahaan thaqaafo ahaan aragti ahaan qaab nololeed ama waxaynu odhan karnaa waa majmuuc alawsaaf waasulukiyaat alati tumayizu shakhsa can gayri. waa sifooyinka iyo dhaqamada marka la isku daro qofka kale ka sooca. luqadan dambe huwiyada waa waxaan loo yaqaano identity ama loo yaqaano aqoonsi. yani askarigu markuu ku qabto wuxuu ku odhanayaa keen warqadaada aqoonsiga kaadh yar baad diibaysaa oo ku qoran tahay wax ku tacriifinaya kumaa tahay sheegaya. halkan waxaynu uga jeednaa markaa huwiyada ugama jeedno aqoonsiga ku saabsan magacaaga iyo xaafadaad deganta iyo adreskaaga iyo register numberkaaga iyo kuwa, laakiin waxaynu uga jeednaa shakhsiyadaada wixii tacriifin lahaa oo ah caqiide ahaan fikrad ahaan dhaqan ahaan af ahaan waxaa marka la isku daro kumaa tahay. marka huwiyadu waxay sheegtaa man ana ولمن أنتمي وماذا نريد. كما نحي يان كو أبتر صدا أما يان كمي دحي تاسو عدين إنسان نولوش هدف كاتكالي داي محوي هاي سيدا قفك بني آدم كي كاليجي ومركا هوية أولي هاي أقونسي أولي أي بلشدنا أولاد هاي أقونسي وهوية الأمم ummad waliba umamka kale wax lagaga garto oo ay ku muuqato bay leedahay oo astaan iyo tilmaam u ah. مثلا waxaynu odhan karnaa waa mujtamac islaamiya ama muslima, waxaynu odhan karnaa waa mujtamac cilmaaniya, waxaynu odhan karnaa waa mujtamac masiixiya ama nasraaniya, waa mujtamac shuyuuciya, waa mujtamac ra'samaaliya. markaynu sifaadkaas siino bulsho kastoo aynu siinay waxay leedahay mumayazaad ama wax calaamado u gaara
iyo mabaadi iyo afkaar ay kaga soocan tahay ummadaha kale ee markaasi ay ummadnimada la wadaagto haddii markaa ay iswaafaqaan qofka hawiyadiisa ama intimaagiisa iyo bulshada uu la degan yahay intimaageedu hadday iswaafaqaan oo bulshada aad la degantahay markaad lan mid noqoto xagga caqiidada dhaqanka afkaarta luqada cunnada zayiga dharka huga waxaa markaad kala mid noqoto waxaad dareemaysaa al-amnu waalraaxa waaltuma'niina deganaanshiyaa dareemaysaa iyo xasillooni iyo dadaad ka tirsan tahay oo ka mid tahay inaad la joogto haddii huwiyada markaa aad sidato aqoonsigaagu uu ka gedisnaado bulshada aad la degan tahay waxaad dareemaysaa asmatu liqtiraab qariibnimo iyo stranger inaad tahay qof bulshadan aan ka mid ahayn inaad tahay saas awgeed buu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayay bada'a alislaamu gariiban wasayacuudu kamaa bada'a gariiba أو سيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء حديث صحيح مسلم كويا الله نبي عليه الصلاة والسلام وحلا الإسلام كوحب بلا بيسقو غريبة يعني نبي محمد عليه الصلاة والسلام بلشو كردح بلا ما يقول هي كردح الدورتي وغريب كويا هي عقائد أفكارتا عبادات كردقن كسلوكيات كوحو وطردمي إسقو هدنا ابن من أبناء قريشة أي كود قدسين هي غربة الرسم مركا أزمة الهوية أياها بيلين أزمة الاغتراب هدي مركا يسوكا وافقضه هوية دي واحد من سنة هي دقنك إيو كالجر كدمانتي بلشاء اسكيمتين مركا الله نوشينا وحواليبا ويفي عنانا يعني نفسيا بادو دقنانيسه waxaad la mid noqonaysaa nin daadku ama mawjadu dhankay u socoto u dabaalanaya yani mawjada iyada ku sidaysa dhankay u socoto haddaad u dabaalanayso haddaad ku dhex noolaato bulsho ama mujtamac aad ka gedisan tahay huwiyadaadu ama identitygaagu uu ka gedisan yahayna waxaad la mid noqonaysaa nin ka hor dabaalanaya dhanka uu u socdo daadku ama mawjadu ay u socoto huwiyada markaa qofku waa meesha uu nisbo sheegto ama uu ka tirsan yahay ama uu wax la wadaago ama uu hiil iyo hooba siiyo ama shakhsiyadiisu ay ku dhammaato huwiyada qofku waa shayga uu badaa'isha kala noocaa ku kala fadilo bulshooyinka markaa huwiyadoodu ama identitygooda ama aqoonsigoodu wuu daciifaa ilaa yow ka tirtirmo oo markay ummaddu wixii ay gaarka ku ahayd uu daciifo ee liite marka dambe uu tirtirmo waxaa la yidhahdaa ummadda maskhi baa ku dhacay ama inqiraad baa ku dhacay way tirtirantay waa ummad aan markaa jirin walow ay dhashii tahay dadku dadkii uu yahay jinsiyan مثلا حضاراتكي قديمكا marka laga waramo xadaaradaas tirtirantay xadaaradaas aan joogin xadaaradii Romans xadaaradii kan maxaa tirtirmay waxa tirtirmay dadkan siday u fakarayeen waxay cuni jireen waxay huwan jireen dhaqanka ay lahaayeen qaabka isugu xidhnaayeen bulshadu wixii ay caanka ku ahayd oo dhan meesha ka baxay dabeetana waxa soo baxay bulshatii ka gadisan walow abtirsiinta hal la wadaagtay ولذلك ayaa waxaan oran karnaa ummad kasta waxay isku daydaa inay huwiyadeeda ama identitygeeda inay xejisato oo ku dhegto oo kordhiso oo duwalku waxyaabahan ay wasaaradka tacliimiga iyo wasaaradka thaqaafada iyo wasaaradka culture iyo waxaan ka warrama waxay u samaysteen waxa weeyaan inay ilaaliyaan ummadaasi ay ka tirsan yihiin inaanay dhaqan guurin
inaanay aqoonsigeedii ummadnimo swedishku waxbuu swedish ku yahay uu kaga gedisan yahay norwijiga dowladda norway waxay ku dadaalaysaa norwijinimada inay ilaaliso aanay lumin dowladda swedishkuna waxay ku dadaalaysaa swedishnimadu inaanay lumin iyadoo laga yaabo waxyaabo badan inay wadaagaan ayaa haddana waxaa jira wax huwiyaatu ay ku kala gedisan yihiin waxbaa jira scandinavianku uu wadaago uu kaga gedisan yahay yurubta kale oo ay gaar u sii ilaashadaan bulshada gudaheedu xataa markaa hal bulsho oo quroo wada nool ayaa waxay isku dhex maagtaa maalan markaad maqasho liberalism iyo conservative ama conservatism waa maxay difference-ka u dhexeeya liberalismku iyo conservative-ku waxay ka conservative-ku waa muxaafidiin dhaqankii iyo wixii ay dadkani lahaan jireen raba inay ilaaliyaan liberalismkuna wuxuu ogolayay تعدد الثقافات تعدد الأديان تعدد كذا wax waliba inay tira bataan siyaasaddu mid ha laga noqdo ama waxa kale oo dhamay ha tira bataan ولذلك baa mujtamaca quri markuu ishayo wuxuu isu hayaa kuwan huwiyadooda daciifa bay leeyihiin qolada conservative-ka ah bulsho waliba markaa waxay ilaalisaa waxay dadka kaga gadisantahay inay xejisato iminka kuwan raasistka ee caddaanka ilaalinaya huwiyadiisiibuu caddaanka ka dhigay therefore wuxuu ilaalinayaa midabka cadi inuu naqi noqdo aan la soo dhex gelin wuxuu diidan yahay cid aan midabkan lahayn inay ku soo biirto afrika maalan qabaa'ilka iyo bulshaadka qaarkood si ay u ilaaliyaan thaqaafadoodii waxay qaateen inay jidhka sumad ku dhigaan meelahan baa laga jeexjeexaya meelahan baa laga jeexjeexaya waxaa la rabaa inaanu ninkan bulshadan uu ku abtirsado ka dhex bixin inaanu lumin huwiyadatan waa identity la rabo in loo sameeyo haddaba waxay isweydiinta le waxay tahay huwiyadaasi dacfiguna uu ku dhaca waanay xooganaata waana sababtuu nebigu u yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka abi daawuudka ahaa qofka muslimka iyuu dhex degin maxay gaalada bal laa tataraa'a naarahuma dabkoodu iyuu isu bixin sababtu waa maxay waa qofka huwiyadiisii baa lumaysa waa sababta ay yidhaahdaan fuqahadu haddii meesha uu degan yahay uu shacaa'irtiisa iyo islaamnimadiisa iyo wixiisoo dhan uu muujisan karo way u bannaantahay bay dhahay inuu deganaado waa maxay huwiyadan ka tirtirmaynin waa hadduu shakhsiyaddiisii ilaalin karayo islaamiga ahayd iyo wixii sifaadka uu lahaa haddaanay lumaynin markaa waxa la yidhi waa la ogolaan karaa inuu joogi karo meesha tan huwiyada maxaa u asala dadka qaar waxay idhahdaan 3 cunsur dadka qaarna waxay idhahdaan 4 cunsur baa muhiim ah canaasir badan bay leedahay waa canaasirta ugu muhiimsan cunsurka koowaad waxay idhahdaan waa caqiidada waayo caqiidadu iimaanku waxa la rumeeyaa waa qofka waxa siiyaba tasawurka uu wujuudka oo dhan ka qababa aragtida uu noloshaba ka qabo waxa siiya wuxuu rumaysan yahay kawnkaba siduu u qiimeynayo siduu u sawirayo siduu u arkayo caqaa'idaad samaysa bacdaha waxa huwiyada sameeya bay dhahaan luqaadka oo afku waa weelka sida dhaqanka ummadi leedahay ummad haddaad afkeeda barato dhaqankeeda waad baratay weeyaan ummad haddaanad afkeeda garanay dhaqankeeda garan maysid weeyaan marka waxay dhahdaan afku waa weelka sida identity-ga ummaddu ay leedahay ama thaqaafadda ummaddu leedahay saddex waxay dhahdaan waxdatu taariikh waa dad turaas wada wadaaga hidde iyo dhaqan iyo taariikh iyo ab hore meel hore ay ku abtirsadeen wadaaga oo taariikhi midayso dadka badh baa waxay ku daraan الحدود الجغرافية دول با وداجيه اسنا دولات كان قومي جدا به هويدoodu waxay ku salaysan tahay inay dhul wada wadaagaan huwiyada islaamiga ah laakiin ka muslimiin markaynu nahay wal intimaa ila Allah wa rasuulihi man ana muslim kuma nahay huwa samaakum almuslimina min qabl صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة دي دتكو بدي سرسرين ما يسرنشيين ما وعايزكو على مضيين إلهي وحلي صبغة الله
waman axsanu min allahi sibqa huwiyada islaamiga markaa waxa ugu horeysa waa huwiyat alcaqiida waa identity lagu biiri karo waa identity caqiida ku salaysan waxaa soo hoosgelaya markaa ayi qof muslima fi ayi makaan dunida uu kaga noolyahay ama shakli iyo luqo kasta uu ku hadlayo ina hadihi ummatukum ummatan waaxida wa ana rabbukum faacbuduun ummaddiinani ummad quraatiin baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala tamaayuska ama soocdinta ama soohdinta koowaad bini aadamka waxa uu sameeya waxa uu rumaysan yahay marka huwiyadiisu waa caqiidadiisa qofka muslimka ah walidalik buu mufakirkii la odhan jiray sayid qutb kitaabkiisa macaalimka waxaa ka mid ahaa cinwaan la yidhahda maxay jinsiyat lmuslimi caqiidatu la yidhahdo uu tilmaamayo qofku meesha uu ku abtirsaday rasmiga muslimka ah idan muqawamaadka biqaa'a ama inay dadku waaraan ama thaqaafadooda iyo aragtidoodu jirto ama aanay dadka kale ku dhex milmin caqiidada ka koowa dadka hadday caqiidadu ka lunto ama se ka xumaato oo aanad caqiidadaada tamaayus ka samaynin marka hore waa ka ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamaya munaafiqiinta maxaa la yidhi laa ilaa haaulaa walaa ilaa haaulaa waxaa lagu tilmaamay inay yihiin maxay mudabdabiina bayna dalik waa dad u dhexeeya yacni waa dad aan huwiye lahayn waa dad aan meel istaagin waa dad aan wax loogu ay ku muuqdaan lahayn idan huwiyada qofka muslimkee koowaad waa alcaqiida waa inuu qofku caqiidadiisa caddaystaa lakum diinukum waliya diin اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وحسنا ما حيشيغي ينقفك مؤمنك هويدي سكواد ايدنتيغي سكواد اي تاينو الى شداين تي عقيده ورميسين iyada waxa kala dhami ka dhambalmaan oo maxaa kamida waxa ka dhambalma xataa madaahirta kamida muuqaalka hadduu dhar yahay hadduu wax kale yahay madaahirta dadka muuqata ونبي عليه الصلاة والسلام وحليه من تشبه بقوم فهو منهم حديث الإمام أحمد يا أبو داود ورينيا حافظكنا وحسن كتل ماميو نبي حليه عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم إنك دول سوء كيسية فهو منهم إيجو كتر سيء إنك دول سوء كيسية إيجو كتر سيء معناه يدم حويه يعني وحويان muuqaalka sare inta badan wuxuu waafaqsan yahay muuqaalka qarsoon ee caqiidadu waafaqsan yahay walidalik misaal dhar haddaynu soo qaadno dharku asliyan bini aadamku saddex shay oo uu wadaago u xidhaa dharka waxaa loo xidhaa maxay liziina iyo lisatri alcawra iyo caadiyaat alxayaa in la iskaga celiyo in la isku qurxiyo in cawrada lagu asturto iyo in maxay nolosha gedgedigeeda la iskaga celiyo oo dee markay dhaxan noqoto dhar dhaxameed inaad xidhato markay kulayl noqotona dhar kulayl inaad xidhato laakiin iyadoo intaa bini aadamku isku waafaqsan yahay ayaa haddana waxaa keentay caqiidada uu rumaysan yahay waxay keentaa maxaa ziina inay markaa caddayso ama maxaa satr alcawra ah caqiidadaadu waxay xadidaysaa maxaa cawro ah taasaa waxay keensanaysaa qolaba intay asturaysaa inay ka gedisanaato inta kale u asturayso gabadha muslimadii intay asturaysaa caqiidadeeda xadiday idan madharkeeda caqiida xadiday ayaad odhan kartaa ninka muslimkaa madharkiisa caqiida xadiday ولذلك أيها الإخوة إلى القرآن كوحكول يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين نبي محمد با إلهي وحكول عليه الصلاة والسلام
waxaad tidhahdaa salaadayda iyo gowracayga iyo cibaadaadkayga iyo noloshayda iyo geerida waxa oo dhan lilaahi rabbi alcaalamiin baanu khaalis yeelayaa si awgeed waxaynu leenahay iimaanka iyo caqaa'idday dadku rumaysan yihiin madaahirta iyo muuqaalka ka muuqanaya iyadaa samaysa iyadaa kuu yeesha inaad gadh la baxdiyo inaad la bixin iyadaa kuu yeesha marada inaad canqowga ka korraysiyo inaad ka korraysiin iyadaa kuu samaysa maradu inay kugu dhegsanaato iyo inaanay kugu dhegsanaanin iyadaa kuu samaysa maradu inay cawrada wada asturto iyo inaanay wada asturin iyadaa kuu xadida cidda aad u ekaanayso qaabka aad u ekaanayso caqaa'iddaad rumaysantaa xadidaysa ثاني الأمر عقائد أممكم الرميسيين عقيدة ومصدر العزة ووحو قفك كفانا ووحو قرية معها هذا قريصة شخصية شبطيبات منهزم بات مركا وهي inferiority كومبلا قسبات قاطع عقدة بات قبطة عقدة النقص اللي رادت كانت كهوصيصة صومالي دا meelaha faanka ay leedaan sidaada ilaahay baa ku badbaadiyay waxa kamid ah waa cunsur barawd ah waa cunsur isla weyni sidiisa lagu tarbiyeeyay nin walba reerkooda waxa la yidhi reeraha idinka boqor u ahaan jiray waa cunsurkaasi wuxuu keensaday afrikaanka way yeesaan cadaanka way yeesaan Soomaaliyeed baa shalay wuxuu igu lahaa mise daraad inaan adeerkay dhalay buu yidhi ninkii caddaaya ugu horreysay maalinta aragtay way ma tagtay buu yidhi sanbab baaban mooday bay tiri yacni ways bay iskala weynayd waa cunsur isla weyni saan caddaalay u arkaysay yacni soomaaligu marka waa cunsur aan ciddaba wuxuu ogeyn hadduu qofku laakiin qaado cuqdati naqs in dadku wax dheeriyiin hadduu rumaysto wuu jabaa markiibana dadka wuu ku daydaa ولذلك أيها الإخوة عقيدة ومصدر العزة وإلهي سبحانه وتعالى قرآن وحكول لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون كتابا ندين سودة النبي إلهي لي ما مسكين يمقعين يشرف تدين ويكتشرته إمهيدا عقل لهين با إلهي لي سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون عزة يا شرفته إلهي يا رسول كيسي مؤمنين تاسكله منافقين تسجران ما يسبى إلهي لي سبحانه وتعالى يعني قفك مؤمن كي مركو الربو إنه عزيز نمدي سموتشي وإنه إسلام نمدي سموتشستا هذا درك توقف أيضا تتجي سقرصنية يعني لو قال إن أنا مسلم تاي قضية كو قرن إن أنا مسلم تاي إسلام نماذا قري هذا تو وعقدت بعض قبطها نقصك وجروية لكن قفك وإنه براوكو هذا وحي الرميسين ولذلك عقيدته إلهي وحلايا يبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا من كان يريد العزة فلله العزة جميعا عقائده هي إيمانية كي وحل الرميسية والرباط كبلشدة اسكحرة ووحب بلشدة اسكينة وواي وحا كردشة الولاء iyo walmaxaba intii wada rumaysan iyo nusro iyo isuhiilin iyo isu gargaar faasbaxtum binicmati ikhwaana inama almu'minuuna ikhwa adduunkuna sidiisaba markaan idiin sheego waxaa ka jira siraaci alhuwiyaat dunida waxay isku haysaa cid waliba huwiyadeeda ayay jeceshay inay muuqato waxay dhahdaan xaqaa'iq baa jira fii cilmi alijtimaac أما sociology علمي قبل شدة حقائق ما شرتب إلينا جماعة كستوب بني آدم ككمدي وحي رميسانتي عقائد دي قيم كدي وحي هستا وحي وقفي عنينويه قالوا ولي بس أسيكو أنا أحسنتي وحيدة وإلهي بقرآن يقول كذلك زينا لكل أمة عملهم قالوا والبولوق هي عمل كودبا إلهي سبحانه وتعالى دهنا جنا إلهينا وما قرنا وحولي كنتم خير أمة أخرجت للناس قالوا ولو الدنيا ده شوك تابا مركا رقم كاغي أفكاغي وحاجة وقفوا كسر دواده وضوء إلى طه إلى النبي محمد بولي وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك
litaftarii calayna hayra waida latakhaduuka khaliila baa ilaahay yidhi waxaad ku dhowaatay baa rabbi leeya inay ku fitneeyaan oo wixii aanu kuu soo dejinay wax ka mid a aad ka tagto haddaad ka tagto saaxiib bay kaa dhigan lahaayeen baa ilaahay leeyahy subxaana wa tacaala yacni qofku cidda uu arko inay xaggiisa usoo janjeedhay afkaarta la wadaagto ama dhaqan la wadaagto ama af la wadaagto wuu uga dhow yahay dadka kale waxa caadiya bay yidhaahdeenoo bulshooyinku ay yaqaaniin bulsho raalli kama noqoto ilaa ay la midab noqoto mooyaane yacni ay wax walba kala mid noqoto ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku leeyahy walan tardaa canka alyahuudu wala annasaara xataa tattabica millatahum raalli kaa noqon maayaan baa ilaahay yidhi yuhuudi nasaare ilaa iyo aad tooda raacdid yacni bulsho waloo dunida joogtaaba haddaad dariiqooda si fiican u raacdid integrationka ay sheegayaan haddaad daafto assimilationka qaadato haddaad milantid waxaa lagu leeyahay waad fahamtay bulshada iyo dhaqankeeda iyo kalja adu waad la noolaan karaysaa waaxid minhum baa tahay marka waa lagu soo dhaweynaya haddaad se kolba caqiide iyo salaad iyo wax kale hoosta kala soo baxdid kurtimaa kaa taagtaaganoo bulshadu kuma xijin karayso waa durkaysaa waa xaqiiqa ijtimaaciya bay yidhaahdaan qofku cidda wax la wadaaga inuu soo dhowaado haddaad magaalo timaado macawise laga xidhan yahay ka soo qaad aad surwaal adigu soo xidhato dadka hoostay kaa yare wada eegayaan waayo madharkaanad uga ekayn cagsiga meel surwaal laga wada xidhan yahay haddaad timaado macawis soo xidhatid hoostaa lagaa yare eegaya waayo waanad u ekayn يعني بني آدم كوحي دادان إن أدو أكتهيبا فرح جلسة وحسيته وحلا مدينة سيدته واحد عن بلشوين كقارما بلشوين كاين بدنو كميدا إن عدة كلاو أكاتو وحي كبحيان حوق يدقالة بدن يضغضي مرر كقاركود قاعدة حدل يا حبسي يا وحلا مدا مرر كقاركود نقاعدة برشر نفسية والدولة مركي جاليات عصبي تمادا ما وح عصبي تمادا إنفندر مركو يمادا دولة خرج إياه العقب بدن بيكون بحيان سي ضدك كان يوقع كيسيان ضدك بالشدة ماشي دجنا أما أفهم نقطة دقن هالنقطة كالجر لبرا هالنقطة دولة وحاسو خرج وحي وجلسة سي كوجو كيسي ساد ولا ملمي كرتا ما وغمد نقون كرتا بالشدة إلى القرآن كوحكوت المام يقول ضغط حوك جاري وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك مركا إلهي القرآن كنت المامي أما قال الملأ الذين استكبروا من قومي لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أمسه أو لتعودن في ملتنا بينه نبي شعيب ودق يكو واحدة يركو الراعدي أما مقالة وإذن كسارينا أما الدين تاكو صار نغنسان وددك الله من نغنسان بينه قال ولو كنا كارهين بوقو جواب وحتى هذانا ربين دين تم قصباه وحلم ده dad yawa diimaha iyo xadaaraadka waaweyn la qaybo ka midi waxay isku dayaan inay xadaaradooda ka dhigaan xadaara caalamiya thaqaafadoodana ay ka dhigaan thaqaafa caalamiya huwiyadoodana ay ka dhigaan huwiya caalamiya dabeetana la isku dayo bulshada kale oo dhan in la liqsiiyo taasi min khilaali adawaati saytara baana lagu liqsiiyaa waxyaabaha xooggeed dowladuhu markaa haystaan ee askar leh ee iclaam leh ee technology leh ee waxbarasho leh globalizationkan aad maqlaysaa maxaa la globalize garaynaya ma afkaarta caalam musaalidka taallaa la globalize garaynaya baad u malaynaysa iyo diimaha dunida saddexaad haysata iyo maya globalizationku wuxuu socdaa thaqaafadda westku haysto in dunidoo dhan la gaadhsiiyo dunidoo dhammi inay وأكاتو وسكا ولذلك كفر صومانت وحلا اسكو دايا واحد عنطه إيا واحد هوته إيا واحد ساحتين لقو حدده إيدان لقو شيغين تيفي يدان انترناشنال كي وحنا إعلان صوب بحنا يان محاكا والرمية وحلا الربا مسكين كير تولير وصوماليا كتالة دقن إن لو شاقو صابون توفي عن لقو ميدان نوعيتي
cunnada wanaag maxaa kijada loogu kariyaa tviyada maxaa barnaamij dhan uunu raashin karin oo tv ka socdaad arkaysaa waxaa la rabaa in loo sheego miskiinka yare soomaaliya degan cultureka cunnada ee western ku leeyahay iyo fast foodkan iyo hamburgerkan iyo waxaan inuu waxa fiican yahay oo uu qaato mcdonaldka iyo nooca kan thaqaafada inuu qaato waxaa la rabaa miskiinka yare meel heblaayo jooga idan globalizationka la sheegaya waa maxay waa cawlama lithaqaafati algharb ثقافة قلبيت كلية ما وحل الربا إلا عولا ومايو ولذلك بقى قرارات كأمم المتحدة هي مجلس الأمن هي صندوق النقد الدولي هي مجتمع الدولي يا شيغان ودم ما مجتمع الدولي يا واجي هوري waxay oran jireen على المجتمع الحر مجتمع حرطة إمك هو يكبد المجتمع حركة waxay uga jeedeen ده western society إمك هو يكبد لنا مجتمع الدولي جاب عين كايدا الولي ما مجتمع الدولي يا جرا ما يا وأنا ما كفيت أباور لا يا يوافق الدنيا ده كهالله يجا مركز شيء يا نقب الدنيا ده قاضن لها يسدو فكر لها يوحصبي لها يودا كل هذا أيها الإخوة وحي شيء يسه كصدا أي سري حيانة لي سري حيا مسألة الهوية صراع عصبانك كتير هوية ده إلى هنا وحقران كله ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء كما الزول يعني إذا لا الدريران بإله إلهي دريرتو أما الدرير دقال هالنقطة أما الدرير فكري أفكاري دقالة يحوق هالنقطة إلى يا إذا كسران بالليدي هوية ده ستانو الدين تين أما وحي تعلي إن أوجالو دان سي أوجالو بين بالليل يعني حضارة دودي أفكار دودي ثقافة دودي نتقاضته ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم بل كلينتون كيف دحوينا أخذ بضين يا وحولي to transfer the world in our image بيد تحويل العالم إلى صورتنا يعني هل كسيكار سنت مريك منو كفكروا عالم كينو قديو صورة دودو كله سودتكو قف مريكنا وضع نقل لها يوكله بله نكسن با كتاب كيسو قريب ومدحوينه هنا مريكنا أيها وحولي كما عبصنا إنه الضربة النووية نكلير باورنا لقول افتعدنا كما بقينا لكن وحن كبقينا بودي الإسلام والحرب العقائدية التي قد تقضي الهوية الذاتية للغرب waxaanu ka cabsi qabnaa buu leeyahay waxa weeyaan islaamka iyo loolanka ideology caqaa'id ku saabsan kuwaas waxay bedelayaan buu leeyahay culture iyo huwiyadii ama identity west ku lahaa idan wuxuu leeyahay xarbiga iyagu maanta waanu ka gudubnay inaanu askar dunida joogto oo dhan ka baqno laakiin waxaanu ka baqanaynaa buu leeyahay caalamul afkaar in laga xoog bato waxa uu tilmaamayaa reer galbeedku dagaaladii ugu dambeeyay galayeen waxay iminka ka hadli jireen western value wax la yiraahdo democratization and western value waa inaynu faafinaa dimuqraadiyadda iyo dhaqanka galbeedka bay leeyahay ama value-ga ama qiyamka galbeedka uu leeyahay maxaa faransiiska iyo khimaarkan hablaha yaryar madaxa ku xidhaan masarka madaxa maxaa ka dhaxeeya dawladda muxuu masarku yeelayaa waxay leeyihiin masarkan yar iyo xijaabkan dumarku qaataan waa iclaanun lilhuwiya bay yidhaahdeen waa cid caddaysanaysa huwiyadiisa iyo ciddu ka tirsan waa identity iyo aqoonsi ka gedisan bay leeyihiin identity iyo aqoonsigii waddanku lahaa marka ma rabna bay leeyihiin shaara diiniya oo aan ahayn shaaraadka waddanku uu leeyahay idan gabadha muslimadda ee xijaabka sidataa waa qof kaadhkiisa isagu madaxa ku sita ninka waxa laga yaabaa identity-gaaga tus marka la yiraahdo inuu jaabka ka soo saaro laakiin gabadhu identity-geedii waa marada ay sidato walidalik way ku adagtay dadka dulqaadka yar leh inay u dulqaataan waa waxa mushkiladda maanta Yurub ka dhigay in badan niqaab iyo xijaab wadana badan oo Yurub in laga mamnuuco sababtu waa maxay waxay leeyihiin waxa bedelmaya bulshadan culture-keedii baa bedelmaya bay leeyihiin islamization kan iyo maryaha kan iyo maxaa keenay in siyaasiyiin waaweyn oo Yurub ay madaxweynenimada ku galaan loolankii Faransiiska madaxweynenimada waxyaabii lagu galay waxa ka mid ahaa hilib xalaalkan joojinaya hilib xalaalku muxuu yeelayaa Faransa
in hilib xalaala iyo hilib la gowracay iyo hilib si kale loo gowracay inuu jiro muxuu yeelayaa waxay leeyihin waa identity cunno maaha ee waxay leeyihin duul baa raba dhaqankooda inay muujiyaan marka identity-gan baanu diidanay gaarkee ka baxsan identity-gii faransi lahayd ayuu ku doodayaan bacda siyaasiyiin kullu dalika ayuha alikhwa huwiyada bini aadamku isku hayo maalan turkiya maxaa loogu diidan yahay inay soo gasho EU-da iyadoo dowlado ka faqiirsan loo ogolaaday oo muqawamatul xayaat ka liita oo ka dad yar oo ka dhaqaalo yar oo ka technology Yurubtii bari qayba ka mid ah ayaa loo ogolaaday dhammaantood inay soo galaan waayo madaxda waaweyn ee Yurub qaar ka mid ah waxay ku dhawaaqeen meeshu waa naadi masiixiya bay yiraahdeen hadday soo gasho bay yiraahdeen turkigu identity-ga Yurub wax ka bedelaya huwiyada Yurub waayo 80 milyan oo Turkiya markay soo gasho oo kontaneeyo milyan dhowr iyo 20 milyan oo mustadcafiin oo horena iska sii joogeen inta marka la isku daro waa 100 iyo dheeraad milyan bay yiraahdeen waa rubuc Yurub ka mid ah baa noqonaya diin muctarafa bay noqonaysaa maadaama ay ku soo boorto idan waxay leeyihiin huwiyadii bay isbedelaysaa iyadoo haddana dhaqaalaheedu yahay 7% bay recession-ka markay dunidu ku jirtay dhaqaalaha ay Turkiya sii socotay waa bacda China oo wadanada koraya China dabadi wadanka sidaa u koraya na waa la celiyay wadana ay lacag la daba taagayeen oo kicibala kushuba oo la leeyahay way sii faqaranaysaa una waxa la leeyahay hal hayo marnaba ay ka bixin naadiga lagu xijiyo difference waa maxay waa huwiyada midna waa la huwiya waa la dhaqan waa la taariikh waa la diin midna waa huwiye ka gadisan waa identity ka gadisan ayuha alikhwa umamka maanta dunida ku nool dhammaantood huwiyadaas ay u dadaalayaan ummad walo dunida ka mid ibana saddex fikradood bay soo bandhigaan qolada ka hadasha sociology dad la nool oo isolated bay dhahaan ka go'an oo is ururiyo geeta ku nool iyo dad la nool oo integration sameeya wax la wadaaga waxna kala haada iyo dad la nool oo assimilation sameeya milma sokorta haddaad biyaha ku shubto way milmaysaa sokorta ma soo qaban maysid biyuhu bay ka mid noqonaysaa milma markaas iyo bulshada ka mid noqda umamka duni ahaan saasaa la soo hayaa duni ahaan globalization kan tirada badan la socda waxa weeyaan dad baa waxay rabaan thaqaafadooda iyo culture-kooda iyo dhaqankooda bal iyo luqadoodu inay noqoto waxa dunida la wadaagto waxa dunida wadaagta inay noqoto dariskaygu wuxuu ahaa marka sidee huwiyada loo ilaaliyaa laakiin waxa waqti intiisii badnayd baa iga qaaday maxay huwiyadu tahay darsigu laakiin wuxuu ahaa see loo ilaaliyaa haddaan markaa qodobo kooban ka sheego kow waxa lagu ilaaliyaa koowaad waxa weeyaan inaynu wacyi u yeelano feejigni oo qofka muslimka ah identitygiisa iyo huwiyadiisa inuu feejignaado oo nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay isagoo saxaabadiisa u digaya inay milmaan لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن نبي عليه الصلاة والسلام حليه وحا راعي الدونتان dhaqamadii kuwii idinka horreeyey ayaa taakataakiya dhudhundhudhunu raaci doontaan xataa hadday galaan buu nebigu yidhi god masalugalay ama masacagalay waa ka dabageli doontaan buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam markaasaanu idhi ilaahay rasuulkiisiiyo waa iyo kuwani ma yuhuud iyo nasaara markaasuu nebigu wuxuu yidhi haddaa faman yaa kale
xadiidka kan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu digayaa dadka mu'miniinta iyo muslimiinta waxaa looga digayaa culturally inay milmaan waxaa looga digayaa huwiyadooda inay waayaan dabeetana wuxuu nabigu farayaa calayhi salaatu wasalaam dadkan mu'miniinta ahi wacyiga inay lahaadaan xadiidka u fiirso mithaalka uu bixiyey hadday galaan baa la yidhi god masalugalay sacagalaydu godkan ay gasho maxaa ku jira god yaroo madow oo qurmuun oo cidhiidh iyo waxba ku jirin laakiin waxaa la yidhi god masalugalay hadday galaan waa ka daba macnuhu waa maxay xataa ashyaa hayru macquula ah hadday sameeyaan waa ka daba samaynaysaa aqaafadooda iminka see u faanayso soomaad arag dunida waxaa la isku ogaa marada cusub inay fiican tahay marada la dildilaaciyey goormay fiicnaatay mara la jeexjeexay yani cid baa culture ka dhigatay dabeetana waa la faafiyey dunida waxaynu isku ogaan qofku inuu aanu nabarra lahayn inay fiican tahay in la isjeexjeexo dhagaa la daldolosho xaggan la daldololaya goormay fiicnaatay qolaa samaysay dabeetana waa laga wada daba sameeyey carabka dalooli sanka dalooli dhegta dalooli isha dalooli qofka bini aadamka in laga dhigo sabuurad lagu faygaro oo la wada rinjiyeeyo dhammaantii ma wax quruxlaba waa wax shaacay xataa caqliyaadka maanta jira maalan inaad dhegta isgoysaa way bannaantay laakiin waxyaabahan iminka warramaan dumarku meelaha qaarkood inay isgooyaan waa iyadu sharcigaa diiday saxiixa maaha dhagaasi inaad isgoyso ama sanka isgoyso ama carabka isgoyso waa kuu bannaantay aqaafaadka markaad u fiirsato wuxuu nabigu ina faraya calayhi salaatu wasalaam markaa wargod hadday galaan waa ka dabageli doontaan waxaynu u baahannahay markaa inaynu si fiican u fahamno oo ummaddu inay ilaashato huwiyadeeda huwiyada waxaa ugu horeeya caqaa'idda si aynu huwiyadeenna u ilaashanno tarsiikh alcaqiida waa inaynu dadka caqiidada xoog ugu dhignaa waayo qofku markuu muslimnimada si fiican u fahmo iyaduu ku faanaya hadhow waa proud buu ku yahay iyada waxaan islaamku sheegayn ma raacayo islaamka u xadidaya namat alxayaa maxaa la qaadan karaa maxaanad qaadan karin islaamka u xadidaya wax wala uu u baahan yahay inuu fasahaado islaamnimada caqiidadan ba ka ilaalinaysaa caqiidada waxay la mid tahay baan marar badan idhaahdaa vaccinationka sama taqaaniin tallaalka carruurtu iyagoo yaryar baa la tallaalaa maxaa loo tallaalayaa inaan xanuunkaasi ku dhicin mustaqbalka caqiidada waa caynkaa qofka caqiido saxiixa la sameeyey la siiyey wuu tallaalan yahay weeyaan fasaadku kuma dhaco xataa hadday mararka qaarkood shahwaatu nafsigu ka xoog bataan hadduu mararka qaarkood yaro duldulo suuqa yaro galo lacag yaro xado halkan boodboodo waxaan sameeyo waxay u badan tahay aakhirka inuu soo noqdo saasay u badan tahay iimaanku wuu ku qaadhsan yahay inuu aakhirka baraarugo dib u hadday cid ugu tufto kale uu helo qof maalinuuna ilaahay xasuusiya hadduu helo waxay u badan tahay inuu dib u baraarugo waxaan leenahay markaa caqiidada qofka la siiyaa waxay ka ilaalisaa alhaziima nafsiya inuu qofku naf ahaan jabo oo uu moodo dadku inay wax dheeriyiin runtiina u fiirso tusaale aan in badan dadka u tilmaamo waddankeennii markaynu joognay dadka madaxa ka jiran maxaa ku dhici jiray qofka xanuunsada ee madaxu ka jiran yahay waxaa dhici jirtay inuu raama yeesho oo maryo uskag la xidho oo maryo jeexjeexan xidho oo caynkaa xidho qof intuu soo maro qofka is odhan jireen iyo ku dayo ma jira aniga adna sida kan maad raama yeelatid horta ma odhan kari lahay maya waayo waxaad rumaysnayd kan in ilaahay maankii ka qaaday haddaad caqli qabto inaad wax dheer tahay saa daraaddeed qofku qofka ka hooseeya kuma daydo qofka aad yasaysa ama maagayso kuma dayatid dee ilan waxaad rumaysantay inaad wax dheer tahay laakiin maxaa hadda shabaabkeenu raamaha u yeeshaan qolyo la yidhi waa xidigo stars baa lagu sheegay xidiga kubadda dheela
ama xidiga actorka ee filimka matala ama xidiga heesaa raamaysu yeelay ama xidiga heesaa sidii nin waalan intuu intanba xiiray dhoor yar la baxay soomaaliya markay joogteen dhallinyaradu waxay isku caayi jirtay kani waa dhoorre yacni waa reer baadiya oo reer baadiyaha carruurta gafeedh looma haynin badan oo loogu feedhay timaha laga xiiri jiray laakiin inuu inan iyo inan yahay si ay u kala soocaan oo ay labadaba u xiirmin ayay inankana food u reebi jireen intana dhoor u reebi jireen socay kaa maaha baadiyaha carruurtii joogta markaa qolada magaalada joogtaa markay sacaayaysa hebel waa dhooraa la odhan jiray yacni hawd buu ka yimi weeyaan baadiyo hadda ka soo galay maxaa ka dhigay inamadeennu inay hadda dhoorro noqdaan waxaa ka dhigay iyaga nafsiyan bay jabeen caqiid ahaan maanay dhismin nafsiyan buu jabay qofkani dabeetana psychologically buu u arkay qofkan inuu qof weyn oo xidiga yahay kan baa tv-gu buunbuuniyey oo la afuufay oo la yidhi inankaa yare dhoorka lihi kubadda markuu laadaba 1 milyan buu qaataa dabeetana wax weyn baa laga dhigo waa la afuufay kadib inankii yaraa wuxuu rabaa kaa calal aqal haddaanad maxay yidhaahdaan saalixiinta haddaanad saalixiinta gaadha waa la soo ekaysiyaa baa la yidhi haddaanad khushuuca ooyeynin fatabaakuba baa la yidhi haddaanad adigu milyanka helayn markaad adin ku dhufato calal aqal dhoorka yeela bay is idhaahdeen sidaa uu dhoorka u leeyahay haddaan dhoorka yeela yacni wax weyn bay u arkeen mushkiladda waxaa abuuray waxa weeyaan waa inferiority complex baa jira yacni ama miisaankii baa qaldamay wax lagu qiimaynayay idan waxaynu leenahay si aynu u ilaalino dhashiyo ubadkiiyo hawiyadooda inay xejisan karaan caqiidadu waa vaccination caqiidadu waxa weeyaan waa tallaale waa in caqiido saxa la siiyaa shayga labaad waa qiyamka mawaasiinta wax lagu qiimeeyo qofka waa inaynu siinaa oo iyana caqaa'idda ka dhambalma maxaa wanaagsan maxaa xun maxaa khayra maxaa shar ah qofku hadduu kala garto wuxuu garanayaa maxaa lagaga daydaa maxaase lagaga dayan odhan mayno cidda gaalka ama cidda kaa gadisan waxbaba lagagama dayda miya maya waxbaa lagaga daydaa maadaama uu bini aadam yahay maxaa lagaga daydaa waxa faa'iido leh maxaa faa'iido leh maanta waddannadan aynu joogno ma waxaad u malaynaysaan dhoor iyo timo dhan laga xiiray iyo sawir la isku sawiray iyo maro la dildilaacsaday inay ku horumareen miyay kula tahay ma waxaas miyay horumar ku yimi maya horumarku muxuu ku yimi waxbarasho sabir dhabar adayg technology la horumariyo ibdaac fikrad kaasuu ku yimi kaasay ahayd in lagu daydo kaasi waa dhaxalka bini aadamku wadaaga bay yidhahdaan ilaa nebi aadam wixii technology lasoo kala dhexlayay ayay hayaan hadda kaasi wuxuu mudan yahay in lagaga daydo waa waxyaabaha u baahan bini aadamka in lagaga daydo ama cultureska bini aadamka lagagama daydo qof waliba dhaqankiisa iyo culturekiisa iyo namatal xayaadkiisu leeyahay dhadhanka nololeeda kuu gaarka abaad leedahay ay yeedhinayso caqiidadaad iyo meesha aad ka soo jeedo idan waxaan leenahay qofka haddaynu siino mawaasiinta wax lagu qiimeeyo waxay abuuraysaa inuu yeesho wuxuu ku daydo iyo waxaanu ku dayanin qodobka saddexaad waxay yidhaahdaan waa xifdu lhawiya waxa keena luqadoo la ilaaliyo luqaadka umamku ummad kastoo luqa ahaan jabtaa waxay yidhaahdaan waa thaqaafadeeduna waa dumaysa waayo thaqaafada dadku ay leeyihiin waxa sida afka ay dadku leeyihiin sidaa awgeed dowladdan yaree yuhuudda ban israa'iil afkooda af yaroo diinta uun lagu qoru ahaan jiray laakiin markay dowlad yeesheen waxay yidhaahdeen dowlad aan luqa lahayni jiri mayso waa inaynu afkan dib u soo noolaynaa afkii cibriga intay dib u soo nooleeyeen bay ka dhigeen ilaa heer jaamacadeed iyo buxuuth iyo doctora iyo wax walba in lagu qaadan karo fi khilaali 50 sana ayay af mayita dib ugu nooleeyeen si ay huwiyadooda u noolayn karaan dadka muslimiintii waxay u baahan yihiin kow inay nooleeyaan luqa alcarabiya waayo luqadii diinta waa luqadii ilaahay wax kuugu sheegay waa luqadii risaaladan ay ku qorray diin lama fahmi karo haddaan luqa carabeed la fahmin diin lama fahmi karo waayo waa usuushii ilaahay uu ku xifdiyey diinta tan dadka badh baa laga yaabaa inay idhaa luqada carabeed ayaa baran karo waa luqa adag oo waa kano afaf ka liito ka adag baad barateen markii hungurigu galay socankaa maaha markii lagu yidhi shaqayn maysid haddaanad af swedishka baranin
nimay 3 sano ku qaadatay iyo nimay 4 ku qaadatayba waa la bartay laakiin waxaan hubaa haddaa luqada carabeed u dhaqaaqdaan inay dhowr bilood ku qaadanayso yani nolosha wixii dani kaa gasho waa la bartaa wixii dani kaa gasho waa wax la baran karo wax adag ma jiro bale luqada carabeed iyadaa ka jilicsan waayo waxay yidhaahdaan waa luqada qura ee intaad jajabsato hal eray intaad barato jajabiso konton eray kuu noqon karaa af kaloo noocaasi ma jiro yani luqada carabeed matalan qorista iyo buugga wax lagu qorayo iyo library-ga afkiina maxaa lagu yidhaahdaa bibliotheque waa library ama af ingiriisigii library qoristana maxaa la yidhaahdaa writing buuggana maxaa la yidhaahdaa book waa inaad erey kasta gaar u barataa luqada carabeed laakiin waxoo dhammi waa hal waa kataba iyo kitaab iyo maktuub iyo maktabad iyo maca ofiska maca xafiid waxoo dhan waa one word yani luqa ka fududi ma jirto haddii si rasmiya loo daraasaynayo waxaa kaloo aan ku daraya luqada soomaaliyeed waa dhaqan iyana waa in la bartaa bale waa luqaadka islaamigaa bay ka mid tahay ee dhaqan diimeed iyo dad uu leeyahay sida dadku way fudaydsadeen weliba soomaalidu waa dadka ugu fudaydsi badan afkooda aan arko waana ceeb runtii soomaali waxaad ku tahay afkaad ku tahay haddii kale bakistani muslimaad tahay dee ama swedish muslima saxanka maaha adiga iyo swedishka muslimkii maxaa ku kala gedisantii yani midkiina soomaali sheegan kari maayo soomaalinimadu waa luqa marka waxa kaloo dhan laga yimaado luqadan wuxuu mudan yahay qof kasta oo soomaaliya inuu barto umamka luqadooda lumiya way lumiyaan dhaqankoodana dadka luqadooda lumiya way lumiyaan dhaqankooda walidaalika waxaan odhan karaa dunida maanta aynu joogno luqaad baa xadgudbay qoladan linguisticska ka warrama waxay yidhaahdaan hadda sidan lagu socdo bay yidhaahdaan 14 maalmoodba luqaad dunida dhimata bay yidhaahdaan u fiirsa hadda 6,000 oo luqaad sidaa u dhimanaya bay leeyihin 12 cashaba hal luqaad dhimata bay leeyihin oo dunida laga waayaa cid ku hadlaysaba luqaadna way sii ballaadhanayaan oo hawas ilcaalam englishman iyabuu mid qoray program la yidhaahdo ted.com-ka ku soo daynaya englishman yaa la yidhaha hawaska ama waalidii af ingiriisiga markaasuu wuxuu soo sawirayaa china oo dad garoonku badeed fadhiya oo pronunciationka la barayo ee book la leeyahay book wada leh china waa hal markaasuu wuxuu yidhi china subaxii inta af ingiriisiga u kalahda ayaa waddanka ingiriis dadka ku nool ka badan bale ardada imtixaanka college-ka u fadhiistay china 80 milyan baa u fadhiista college-ka 80 milyan jaamacad ma geli kara ilaa iyo af ingiriisiga ku gudbo mooyaane waa 25% bay yidhahdaan imtixaankooda china ardada u fadhiisata imtixaanka af ingiriisiga ee college-ka ku gasha ayaa waddanka ingiriisba ka badan iyo qoladii afka lahaydba maxaan uga jeedaa afafna dunida waa la sii ballaadhinaya afafna way sii dhimanayaan waxaa habboon dadkiina soomaaliyeed ee dhulkan degan inay afkiina ilaashataan waayo afkiinu dhaqan iyo diin buu sidaa waa wax xidhiidhka qura idinka iyo ummadda ka timaadeen idinka dhexeeya soomaalidaad ka timi eediya habaryar iyo adeer waxaad la xidhiidhi kartaa ilmaha geeri markuu af soomaali garanayuunbuu la xidhiidhi karaa wa ilaa hadduu kaa ilaabo laa adeer buu leeyay walaa habaryar buu leeyay walaa eedda ka maqan walaa cidnaba xidhiidh lama leh idan luqadani waa muhim dadku se muhiimaddaa may siinin waxaan ku soo koobaya si loo ilaaliyo huwiyadaasi waxaynu u baahannahay alwaxda midnimadu waa qiima xadaariya waa waxa dacfiga lagaga baxo waxaynu u baahannahay si aynu u ilaalino huwiyadeenna inaynu usarka iyo guriga ilaalino guryaha burburkooda waxaa ka dhasha carruurta burburkooda waxaa ka dhasha diyaac ilhawiya lumitaanka hawiyada waxaynu u baahanay inaynu carruurta ilaalino oo madrasada iyo iclaamka iyo gurigu hawiyada say u muujin lahayn inaynu ku talagalno waxaynu u baahanay huwiyadeena saynu u ilaalino inaynu diinta faafino dadka soo gelino tiradeena dee badino muslimiintii hore koox yar baa xabashida u hijrootay
mid baa ka kiristaamoobay saxaabadii meesha maraysay cubaydillahi ibnu jaxsh cabdillahi ibnu jaxsh iyo zaynab bintu jaxsh iyo walaashood umu xabiiba ninkii qabi jiray wuu kiristaamoobay laakiin iyana maxay heleen iyana boqorkii bay soo heleen dee najaashi bay dee diinta ku soo dareen iyagoo qura lama faganayana xaggooda ka fagteen huwiyada markaad ilaalinayso war haddii midhadh laydinka fagtay ta idinkuna waa inaad wax fagataan marka mid laydinkala baxaba ila idinkaaba mabda' saxa wata waa inaad 10 ku dartaan si aad tirada u badsataan maadaama sheekhu hoos dhinac fadhiyo waxaan idinku soo koobayaa oo nabigu wuxuu leeyahay facalaykum bisunnati wa sunnati alkhulafaa'i ar-raashidiin وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم